in ka badan 10 ruux oo xalay lagu dilay duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa maanta la dhigay isbitaalka weyn ee koonfurta magaalada Gaalkacyo. Falkan ayaa yimid kadib markii dablay baaskoolada ku hubeysan ay xalay gudaha magaalada tan Gaalkacyo ku dileen Allah u naxariistay Cali Tahliil Cadceed Cali Diif oo kamid ahaa saraakiisha ciidanka nabad sugidda maamulka Galmudug. Maleeshiya waxay xasuuq u geysteen dad shacab oo ka soo jeeday deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo laga dhex qabqabtay gudaha magaalada tan Gaalkacyo. gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Diiriye Isxal duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre iyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska maamulka Galmudug Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb ayaa tagay isbitaalka lagu hayo meydadka dadkan shacabka. Duqa degmada Gaalkacyo iyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska oo si wada jira warbaahinta loo hadlay ayaa waxay sheegeen in ay ka xun yihiin dhacdadaasi lagu xasuuqay dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan isla markaana ay ugu baaqeen in ay dadku tan iyo inta arintan ay baaritaan ku sameynayaan maamulka iyo laamaha amniga. dad badan baa la laayay oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo Hirshabeelle ayakana waan ka tacsiyeynaa dad wax ma garataa baa laayay waxaan ka raalinahay maaha ka maamul ahaan dadkaan waa dadkii nolol noolaa ilaa iyo 20 sano ka badan ka maamulka Galmudug ilaa heer madaxweyne waxaan rabnaa inaan dadka reer koonfur galbeed iyo reer Hirshabeelle u cadeyno arintaas waa tilaaban ka qaadaynaa waxaan rabnaa inay isdejisaan inaan saxmad la kicinin oo la isdejiyo arinta waa lagu daba joogaa waad ogtiin meeshan dadkan waa dadkii markii meel kale ka soo qaxdaan aad u soo qaxdeen weeye waxaan markaa hore uga tacsiyeynayaa maamulada ay ka soo jeedaan Hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaan leedahay samir iimaan Allah naga siiyo dhamaantaya way naga wada dhinteen dad aan aqligooda ehel u ahayn baana waxa geystay waxaan leenahay ayagana jannada Allah ka waraabiyo eheladii ay ka soo jeedeen samir iimaan Allah ka siiyo dhamaantood sargaalka dhintana waxaan leeyahay isagana jannada Allah ka waraabiyo asagana gacan ka xaq daran baa dishay dhamaantoodna waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in muxuu ahaayay ay dabagali doono oo aan dabagal ku sameeyno oo wixii shilalka geystay ay jawaab cad laga bixiyo haddii nafta alla noo daayo. Muxyidiin Cabdulqaadir raadiyaha iyo TV-ga dalsan Gaalkacyo.